يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الأخيار وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. وبعد، walaalayaal waxaynu ka soo hadalnay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xaqa ummadda uu ku leeyahay iyo waajibka inaga saaran. waxaa halkana aynu ku qaadan doonaa wujuubu alcamali bisunnati rasuuli sala allahu calayhi wasalam. waa mowduuc kaa horun la sii socda in lagu dhaqmo axaadiidta nebiga calayhi salaatu wasalaam inay waajib tahay oo aanay ikhtiyaari ahayn oo loo daliishado sida qur-aanka loo daliishanayo. waxaa jira dad la idhaahdo muslimiin sheeganayo loona yaqaano munkiri alxadiid aw munkiri xujiyati alxadiid aw ilqur'aaniyiin, dad diidan xadiidka nebigu inuu yahay mid la daliishanayo ole waxay nagu filanuun qur-aanka, laakiin xadiidka nebiga daliil noqon maayo dhinaca diinta marka la eego. arrintaasi iminku may soo bilaabine qarnigii saddexaad bay soo bilaabantay. a'immada iyo culimmada aada u radiyey waxaa ka mid ahaa imaamu shaafici raximahullah. casriganna iyadoo la cusboonaysiiyey oo la xayeysiinaya iclaamka ka soconaysaa da-yarta lagu harawsadaa lagu duufsadaa. waxaynu baraarujin lahayn ugu horeyn daliilada qur-aanka iyo xadiidkaba ee sheegaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam qowlkiisa iyo ficilkiisa iyo taqriirkiisa intuba inay daliil yihiin. qowlka iyo ficilka garanay, taqriirkuna waxa weeye wixii uu dadkoo samaynaya arkay mar hadduu daayey wax jaa-is oo bannaan wey. haddii la idhaahdo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam daliil ma ahana waa diintaa laga tago. oo waxaynu ognahay qur-aanku wuxuu ina faray salaada iyo sakada iyo xajka iyo soomka, laakiin faahfaahintooda iyo sidan aynu u gudanayno habka loola imanayo nebiga caddeeye calayhi salaatu wasalaam. ilaahay isagoo arrintaa ka warramaya waxau ihi man yudici rasuula faqad ataaca allah waman tawallaa famaa arsalnaaka calayhim xafiida. qofka rasuulka adeece ee ka tala qaatee sunnadiisa qaata ilaahay buu aqbalay, ka diidana dee adigu ilaalin maysidanna waan dul taagnahay baa ilahay uhi oo ciqaabaya. waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayh walacallahum yatadakaruun walacallahum yatafakkaruun. qur-aankan kugu soo dejiyo si dadka aada ugu sharaxdo oo aada ugu faahfaahiso. marka waa mufasirkii qur-aanka. xadiidka markaa uu ku fasirayo nebigu qur-aanka waa in la qaataa. haddii aan tafsiirkiisa la qaadanaynin aayaddana la diidayaabay ka dhigantay. ilaahay wuxuu uhi waaqiimuu salaata waaatu zakaata waadiicu rasuula lacallakum turxamuun. salaada oogoo sakada bixiya rasuulkana ka tala qaata si laydinku naxariisto. amar buu ilaahay inagu siiyey inaynu nebiga adeecno, qowlkiisa iyo ficilkiisaba qaadano. aayad kale ilaahay waxau ihi isla suuradaasun suuratu nuur falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amri an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim. ha ka feejignaadeen balaayo weyn iyo cadaab weyn kuwa khilaafa amarka nebiga. diida calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu faraya inay qaataan ama inay ka hadhaan wixii uu nebigu u diiday calayhi salaatu wasalaam. waa aayad faraysa in la fuliyo wuxuu nebigu faraya dadka oo sheegaysa daliilka nebigu inuu daliil yahay. waa ihbaatu daliili bidaliilin aakhar. daliilkii nebigaa ilaahay daliil qur-aana kusii adkaynaya. fii suurati alxashr wamaa aataakum arasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu
wuxuu nabigu idin la yimaado ee idin faraqaata buu lahay wuxuu idin diidana iskaga taga macnaheedu waxa way qowlkiisa daliila nabiga calayhi salaatu wasalaam way farabadayn aayaduhu intaasaynu ka soo qaadanayna dhowrka aayadood axaadiidta markaynu noqonno nabiga calayhi salaatu wasalaam ee caddaynaya in xadiidkiisu uu xujo iyo daliil yahay lagu dhaqmayo wuxuu nabigu uhi man ataacanii faqad ataaca allah waman casaanii faqad casa allah qofka aniga iga tala qaata ilaahay buu ateecay qofka aniga i caasiyaana ilaahay buu caasiyey weligiiba ha sheegtay inuu qur-aanku ku dhaqmayo waa xadiidkii abi hurayra min bukhaari iyo muslim ku sugnaa min xadiidi abi hurayra bukhaari waxaa ku sugan oo abi hurayrana uu nabiga ka soo maqlay calayhi salaatu wasalaam inuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam kullu ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummadoo dhammi jannaday ku casuuman yihiin oo ay gelayaan mid diida mooyaane qofka aniga i adeecaa buu nabigu yihi jannada wuu gelayaa ka i diiday caasiyaana ee daliilkayga iyo sunnadayda raaci waayana jannadii buu diiday waa janno kabood arrintan waa loo sii nuuriyey nabiga calayhi salaatu wasalaam inay soo bixi doonaan qaar sunna diida wuu ka sii digayaa markaa nebigu waa xadiis saxiixa oo ku sugan axmed abi daawud iyo aimo kaleba ay warinayaan min xadiid almiqdaad ibnu macdi karib wuxuu nebigu uhi alaa inii uutiitu lkitaaba wa midlahu macah war ogaada oo soo jeestoo baraaruga oo aniga ilaahay wuxuu siiyey qur-aanka iyo in la eg oo sunnadii iyo xadiidka ah oo lagu dhaqmayo sida qur-aanka loogu dhaqmayo waxaa dhici doona ama yay dhicin nin dheragsan oo sariirtiisa ku jiifa inuu dadka ku yidhaahdo annaga wixii aanu qur-aankaa ka helno waa qaadanaynaa xalaashiisaanu qaadanaynaa xaaraantiisana waa iska daynaynaa wixii uu xaaraantinimeeyo laakiin wax kale iyo sunnadaa ma raacayn nebigu taasuu ka sii digay calayhi salaatu wasalaam waana ta dhacday markii ummadda sagootiyayey sanadii tobnaad xajatalwadaaca waxyaabuhuu nebigu faray waxaa ka mid ahaa hadalkaa uu dadka maalintaa u sheegay inay dadka gaadhsiiyaan marka faa'iido ma yeelateen gaadhsiiya haddaanu daliilahayn alaa falyuballiqi shaahidu minkum alghaa'ib khudbaddiisii dheerayda cajiibka ahayd ee mustaqbalka ummadda u saxaysay wuxuu uhi wardadii oo waxaan idiin sheegay ka joogaa ha gaadhsiiya ka maqan ilaa waa lagu dhaqmayaa sidaasun bay u fahmeen alraciil alawal qarnigii qiimaha badnaa ee qarniyadoo dhan u fadli badnaa saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u fahmeen sida qur-aanka in loogu dhaqmayo qowlka nebiga iyo xadiidkiisa noocyadiisa kala duwan in loo raacayo marka hadday qur-aanka masale ka waayaan sunnaday ka baadi doonayeen haddii markaa asxaabigu aanu xafidsanayna asxaabta kaleu weydiinayay sidaasay khulafaduna ku harkacayeen ee hormood ugu ahaayeen haddaynu tusaaleyl ka soo qaadanno markii nebigu dhintay sala allahu calayhi wasalam carabta intoodii badnayd way ridoobeen oo diintay ka noqdeen qaarkoodna sakadiid bay noqdeen abubakar go-aan wuxuu ku qaatay inuu la dagaalamo wuxuu daliishanayay xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam sadaqada sakada iyo salaada qofka kala saara waan la dagaalami waayo nebigu waxaa la faray buui dadka inaan la dagaalamo qofka soo islaamana waxaa lagu leeyahay xaqiisa xaqa lagu leeyayna waa sakada buui marka dagaalkii ka joogsan maayo xaqii lagu lahaa qofka bixin waayo sakadiya cumar baa la dooday markii dambe wuxuu uhi sida aan markii dambe waxaa ku qancay buu uhi abubakar inuu xaqa ku taagan yahay aniguna taasaan ku raacay abubakar sidiiq allaha ka raali noqda waqtigii uu madaxda ahaa waxaa u timi ruux dumar ah waxay tidhi waxaa dhintay ilmo aan ayeeyo ah dee dhaxalkiisi baa wax ka doonayaa buui wuxuu uhi anigu qur-aanka waxba kuma hayo xukun uu nebigu ayeeyo wuxu xukumayna ma hayo balse asxaabta aan waraysto asxaabtii buu waraystay waxay ka markhaati kaceen inuu nebigu siiyey ayeeyada sudus 6 meeloodow meel ma sidaasaa kolkuu xadiidkaasi sugmay wuu ku camal falay waanu ku dhaqmay ummadduna saasay ku raacday cali bna abi aalib maan idhaahda abubakar mar kale mar saddexaad waxaa loola yimi ruux dumar ahoo ilmo caloosha ugu jiray laga soo riday abubakar markaa muu xusuusanin sunnadii nebigu waxa ay ka sheegtay iyo xadiidku asxaabtu weydiiyey
marka asxaabtii qaar ka mid ah ka markhaati kacay sida Maxamed ibn Maslam iyo Mughirah ibn Shu'ba anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qada bi ghurra inuu nabigu ka xukumay adoon ama adoon aduu shan halaa taqriiban ilmaha caloosha ku jira hadii la soo rido waxa ka waajibaya ama adoon in la bixiyo ama shan halaad ma sidaas arintaas way sugantay asxaabtii looga qaateen ka haba u sheegay inuu nabigu sidaa xukumay uu ku dhaqmay Abu Bakr macnaha waxa dareemaysa sunnadii marka Abu Bakr sida Quraanka ugu amal falaya mar hadii aayad aanay sheegin xadiidkaas uu qaadanaya Uthman ibn Affan Allah ka raali noqdo waqtigu umada madaxda u ahaa ayaa wax laga weydiiyay ruuxa dumar hadii ninkeedu ka geeriyoodo waqtigan ay asayda sido ma gurigay joogaysaa asayda ku qaadaysaa 4 bilood iyo 10 soo iska baxaysaa xaafadeedii bay tagaysaa oo la mid maaha tii la furay arinta cilmi kamu haynine asxaabtu weydiiyay ruux dumar marka cadaysay oo la oran jiray Furaycatu ibn Malik Furaycatu bint Malik ayaa waxay tiri markii ninkaygu geeriyooday arrinkii aan nabiga u sheegay wuxuu faray inaan guriga ku ciida tirsado oo ilaa inta asaydo ay dhamaanaysa halka aan joogo tiibu xukumay Imraan ibn Hussein Allah ka raali noqdo asxaabtii waaweynaa nabiga kamid ahaa ayaa maalmaha kamid ah sunnadii iyo xadiiska nabiga isagoo dadka u sharxaya taabiciintii ka dambeeyay ayaa nin baa wuxuu ku celceliyay quraanka wax nooga sheeg sida kuwan quraaniintii casrigan kolkaasuu aad u cadhooda wuxuu yidhi inna sunna tafsiiru kitaab illaah walowla sunna lam yucraf anna duhra arbacu sunnadu ama xadiidkan imika aad igu soo celinaysaa waxa weeye qur'aanka aad sheegaysa ka sharxaya haddii aanay taasi jirinna maad garateen salaada duhur inay 4 ragcadood ila salaada hal tukada buu ilaahay yiri waqtiyada la tukanaya xadiidka nabiga sheegay ragcadaha la tukanayana xadiidka nabiga cadeeyay calayhi salaatu wassalaam xadiidkii aan ka tagna macnaheedu waxa weeye salaadii garan mayno waqtigeeda iyo ragcadeeda toona aad buu uga cadhoodo ninka waa deedifay taa waxa kula mid ahaayo marka sunnaha laga soo horjeedsada aad u cadhoon jiray asxaabta oo dhan ridwaanullaahi calayhim asxaabigii la odhan jiray Cabdullah ibn Umar ibn Khattab inankiisii oo nin qiimo badan ahaa sunnaha nabigana aad ugu dhaqmi jiray ayaa xadiis buu wariyo dadkii uu sheegay waxa kamid ahaa inamadiisa mid kamid ah xadiisku waxa weeye xadiiska oranaya la tamna'u ima Allah masajid Allah sahih dumarka ilaahay ha u diidina masaajidada ilaahay inay ku soo cibaadaystaan ina yara xamaasadaysnaayo hinaasa ku yara jiro inamadiisa kamid ahaa baa wuxuu wallahi inaanu diidi dumarkuba caadi ma aha buu imaka oo si aan caadi ahayn baa u socdaa waa nuu diidi ma sunnadiin ma nabigaan wax kaaga sheegay buu oo aad ka soo horjeesatay aad buu caayay markaa riwaayinka qaarkoodna waxay tilmaamaan inaanu inankii alla daraadii u dayriyeen dib u hadalba waxa la mid ahaa isaguna asxaabiga la oran jiray Abdullah ibn Mughaffal wacdi buu jeediyay wacdiga waxa kamid ahaa inuu nabigu diiday sallallahu alayhi wasallam bahalkan finiinka la yiraahdo dhagaxin saa lagu faniino ama shimbirlaayahan ciyaalku qaataan xadiidku waxa uu sheegayaa inaanu ugaadhna ku soo ugaadhay cadawna waxa kaaga tarayn laakiin iligana jabiyo ishana soo rido dadka ay wada joogtaan buu qof isha ka ridi karaa iligana ka jabin karaa meeshii looga baahnaa waxba kama tarayo marka iska daayay buu nabigu nahiyay nin qaraabadiisa kamid ah wuxuu arkay intuu xadiidka dhageysta haddana isagoo ku sii wada intuu ninkii horuufay baa wuxuu dib kula hadli ma halka ay noogu joogto kala daa diinta ilaahay iyo sunnadii nabiga diiday saasay ahaan asxaabtu ridwaanullaahi calayhim waa cid aynu kaga dayanayno sida diinta loo raacayo loogu dhaqmayo waxaan yar baraarujin lahaa maxay daliishanayaan nimanka diiday sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam si la isaga ogaado dhowr arrimood bay sheegaan shubahaada culimaduna ay ka wada jawaabeen midna aanay ahayn wax la cuskan karo waxay dhahan marka hore quraanka inagu filan bayna waa ilaahay baa wuxuu ma faradna fil kitaabi min shay quraanka waxba kuma aan dhaafin kitaabka waxba kuma aan dhaafin kitaabkaas waa quraanka ee kala daa waxba lagu dhaafin inagu filan laakiin culimadu waxay kaga jawaabeen aayada xageeda hore marka la akhriyo kitaabka ilaahay uu sheegay waa lawhul mahfuuz
ayuu ilaahay wax walba ku qoray aayad kale wuxuu yidhi bay yidhaahdeen ilaahay subxaanahu watacaala wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay qur-aankaanu kugu soo dejinnay isagoo wax walba caddaynaya culimmadu waxay ugu jawaabeen haa siyaabuhu wax walba qur-aanku u caddaynaya waxaa ka mid a inuu nebigu fasiray calayhi salaatu wasalaam oo aayadaha la isla akhriyaya waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaas qur-aanka waxaanu kugu soo dejinnay si dadka aad ugu caddayso marka siyaabuhu qur-aanku u caddaynaya waxaa ka mid a caddaynta nebiga iyo caddaynta sunnaha waxay soo daliishadeen aayadda suuratulmaa-ida ku sugan ee ilaahay uhi alyawma akmaltu lakum diinakum maanta waan idiin dhammaystiray diintiinnii waa markuu nebigu xajayay calayhi salaatu wasalaam sababta diintii la dhammaystiray bay dhahan waxaa lagu daba wadaa waa maxay culimada waxay ugu jawaabeen diinta waxaa ka mid a sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam diin marka la yidhaahdo waa asalkeedu waa qur-aanka iyo sunnada waxay yidhaahdeen sunnadu waxyiba maaha laakiin ilaahay baa subxaanahu watacaala taa ka hadlo waxau uhi wamaa yandiqu cani ilhawaa in huwa ilaa waxyun yuuxa afka nebiga waxa ka soo baxayaaba waa waxyi waxay yidhaahdeen markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam qowlkiisan odhanayay ficiladan samaynayay maa kaana yaqsudu tashriic inuu sharci dadka ugu dejiyo taa ugamuu jeedin sharci dejintu waa qur-aanka u taana wuxuu nebigu ku beeniyey ila isaga wax ka warinayaane is yidhaahdeen ficilkiisii fasiraya qowlkiisiiye waa kan caddeeye yidhi ilaahay wuxuu isiiyey qur-aanka iyo in la-eg ee nin dhirgayoo sariirtiisa ku jiifaayuu diidi waxay yidhaahdeen waa sababu tafriiq ummaddu intii horey qur-aanka haysatee nebigu noolaa way iska mid ahaysnaayeen laakiin markii ay xadiidkaa qorqoreene madhabe iyo kitaabo la qoray iyo waxaa la sameeyey bay ummaddu iskhilaaftay culimadu waxay ugu jawaabeen sharcigu sunnadiiyo iyo qur-aanka iyo diintu waa muqadas iyagu ceeb ma laha ummaddu hadday iskhilaaftay wixii khilaafkaa sabab u ah iyagu ka yimi laakiin sharciga looma aanayn karo waxay sheegeen ay leeyihiin haddii maalan lagu dhaqmo sunnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam miyaanay noqonaynin ilaahay oo cid kale loo shariig yeelay oo la yidhi cid kalea sharciga dejinaysa sawka ilaahay yidhi in ilxukmu ilaa lilaah xukunka ilaahay unbaa iska leh oo sawkan haddii la yidhaha nebigaa sharci dejiyey miyaanay cid kaloo sharci dejini soo bixin marka xadiidka nas aayaddaasaa diidaysa bay yidhi culimmadu waxay ugu jawaabeen ilaahay sharciga dejinayuunba aayadahan aynu soo akhrinay inagu faray inuu nebiguna sharciga inoo dejinayo oo shaarica dhabta ah ee sharci dejinta iska lihi waa ilaahay baa ina faray oo inoogu soo dhiibay sharcigii nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu inoo keenaana waa wax ilaahay ogol yahay waxay yidhaahdeen sunnaha lama xafidin oo ilaahay qur-aanka wuxuu ballan qaaday inuu ilaalinayo innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun qur-aanka anaa soo dejiye ilaalinayana sunnaha lama ilaalinine wax badan baa lagu dhex daray waa beentiin baa le ilaahay wuu ilaaliyey subxaana wa tacaala wuxuu ku ilaaliyey rag jihbidiyiina oo culimo ah ayaa ilaahay u diro kala shaandheeyo kala shiilay waa la yaqaanaa waxa mawduuca ee la iska alifay iyo waxa daciifa iyo waxa miidda ah ee saafiga hadda way kala qoran yihin oo waa la yaqaanaa almuhim a'immadu jawaabaha iyo qaar ka sii waafisan oo ka faahfaahsan bay siiyeen tusaalun baan usoo qaatay marka waxaynu u sheegaynaa dadka had iyo jeer baraha bulshada akhriya ee da-yarta ama muthaqafiinta ee shubuhaadka iyo waswaaska lagu furayo inay akhriyaan jawaabaha culimada aqoontoodana ballaadhiyaan diinta saxda ah cidda laga qaadanayana waa nebi maxamed iyo saxaabadiisa lagu ururo shubhaadka aan la dhageysan oo qalbiga loo furin allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة